baan ka helay xididadii way kala furteen ikfishingii waan ka bogsaday kolka jirkoo dhan baa dhismaya oo fudayd baad noqonaysaa imise daqiiqadood amba saacadood ayaad halkan dul fadhiyaysaa markaad timaado markaan imaado markaan ugu badan saacad dul fadhiyayaa laakiin magaalada ma galaa meesha ma galaa halkanaan galaaba dixda waxaan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo daawanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan barteen YouTube-ka ku leenahay ee Fagaara Entertainment muuqaal xiiso badan ayaan idin wadnaa saaxiibayaal waa mucjiso lagu arkay dooxada biyo kulul ee degmada Araabi ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya intaanan guda gelin muuqaalkan iyo qisada uu xambaarsan yahay muuqaalkan waxaan marka hore idin xusuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad halkan subscribe saartaan sidoo kalena like-ta iyo commentiga aad ka hilmaamina waad ku mahadsantihiin daawadayaal mucjiso la yaab leh ayaa lagu arkay dooxada biyo kulul ee degmada Araabi waxaa dadka deegaanka ay mar qura ku baraarugeen biyaha markaasi dooxada oo soconayo iyagoona mararka qaar dadku ay sheegayaan inay ku karsadaan badarka sidoo kale waxa ay biyahaasi noqonayaan wax yar kadib biyo qaboob ah oo si caadi ah u socdo haddaba qisadan la yaabka leh waxaa soo tabiyay Safiya Yunis Jaamac Safiya Tusmo oo halkaasi u tagtay dalxiis Safiya Tusmo ayaa sidoo kale waxa ay dadka deegaanka weydiisay waxa ay yihiin biyahani qaarkood oo halkaasi joogay ayaa ku jawaabay in arrintaani tahay mid mucjiso oo halkaasi ku cusub sidoo kalena mararka qaar ay dadkaasi biyahaasi kulaylka ay badarka ku karsadaan sidoo kalena wax yar ka bacda ay noqonayaan biyo caadi oo la cabi karo Safiya Tusmo ayaa su'aal hor dhigtay dadka deegaanka oo ahayd maxay faa'iido leeyihiin biyahani dadka ayaa ugu jawaabay biyahani waa la isku dabiibaa oo caafimaad ayaa laga helaa hooyo ka mid ah dadka deegaanka oo Safiya Tusmo uga warantay ayaa sheegtay in biyahani la isku daweeyo oo yihiin biyo caafimaad wato waxay sheegtay in halkaasi aysan ka tagin sidoo kalena ay caafimaad ahaan dad badan u soo aadaan Safiya Tusmo oo halkaasi u tagtay dalxiis ayaa sidoo kale dadka deegaanka waxa iyagu warameen mucjisada la yaab kale goorta halkaani lagu arkay raxiim maanta waxaan ku suganahay waxaan joognaa Araabi qaybtan waxaa la yiraahdaa biyo kulul meesha magaca biyo kulul ay la baxday waa halkan waxaan ugu nimidnay hooyo Soomaaliyeed oo isku uumiyaysa halkan biyaha waxaan doonaa dhowr su'aalood inaan weydiino saad arkaysaanba meeshani waa mucjiso holac dabka uumiga halkaas ka soo baxaya wanu joogi karlaanahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay isaga garanaya biyahan meesha ku soo karsameen laakiin waa biyo aad u kulul dadku halkan waxay u yimaadeen caafimaad sida rheumatismka dadka qaba skin cancerka dadka qaba xanuunada ku dhaca joints-ka tufka qofo sidoo u yaqaano marka xanuuno badan baa halkan ay dadku saan u ognahay ba u yimaadeen marka waxaan doonayaa habreer magacaaga Faadumo lagu dhahaa Faadumo ma deegaankana degan tahay mise waa timi may waan imid oo xirgeel baan ka imid tuulaha yar xirgeel la yiraahdo ka imid oo xirgeel baad ka timi marka xanuunka u timid maxaa la yiraahdaa halkan xanuunkaan ka imid anigu kulay xidid iyo rheumatiska iyo infection iyo wax aan kaasa oo dareemay baan u imid wali hadda ka hor ma timid halkan soo markii koobaad timaado mar labaad weeyaan kal horaan imid miyaad wax iskaga garatay maatinkaagii hore iskaga mid caafimaad baan ka helay xididadii way kala furteen infectionkii waan ka bogsaday kolka jirkoo dhan baa dhismaya oo fudayd baad noqonaysaa imise daqiiqadood amba saacadood ayaad halkan dul fadhiyaysaa markaad timaado markaan imaado markaan ugu badan saacad dul fadhiyayaa laakiin magaalada ma galaa meesha ma galaa halkanaan galaaba dixda habeenkiina aan galaa waqtiga min subaxda mar baan galaa casarka mar baan galaa duhurka mar baan galaa dhacda way kulul yihiin oo ku galgashaa kuwan uumigana waan isku uuminaa markaad leedahay waan galaa ma habeenkii baad seexataa mise waad soo booqataa waan seexanaa dad badan baan nahay oo dad badan baad tihiin deegaano kala duwan baad ka timaysay isku meel baad ka timaadeen deegaano kala duwan oo meesha baad kulmisay in Hargeysa in Boorama in Itoobiya iyaan ka nimid habeenkiina halkan aad seexataan oo isku uumidaan ilaa iyo imisa maalmood ayaad joogaysaan halkan oo isku uuminaysaan ninba intii ay ugu dhamaatay qaar baa jooga 24 isha maanta u tahay anaga maanta noo saddexa kolka inaan saddex kale ama afar kale joogno ma isku wadna xagga Allah hadan ka helo miyaad wax ku ogtahay dadka kale halka yimaada xanuunada ay qabaan sida adigu wanaad qabtid mooyaan dadka xanuuno duwan miyaad aragtay way hayaan oo qaar bararsan baa jira macaan baan leenahay leeyihiin qaar wada bararsan baa jira qaar in naqasiyo waxaan leenahay baa jira nin xanuunkiisa hadii isaga ay sogtay rokayga baan ogahay miyaad aragtay dad yiri waxbaan iskaga garanay adiga hadda ka hor waa lagu caafimaad ilaahay haddaba saad ogtihiinba halkani biyo kulul baa la yiraahdaa waa meel
aad u kulul markaan leenahay kulayl sahlan ma aha I don't know habartay say u xamilayso kulaylkan anigu hadda uumiga inta uu ii jiro ayaan gubinayaa waxa loo yimaadaa xanuuno kala duwan deegaano kala duwan baa laga yimaadaa joinska san sheegaysa waa taayadu infection bay sheegtay waxay sheegdad macaan leh dad maxaan ku dhahdaa xataa dhiikarka dad baa u yimaado ku reysta qofkii ilaahay ugu soo dhiibo halkan magacaaga saddexan noo sheeg hortaba maxamed sheekh maxamuud sheekh ibraahim maxamed ma deegaanka deegaanta mise waa timi waxaan ka imiday booramaad ka timi halkan riisankaad u timi halkan aan u imid haa waxaan joogaa 25 cisho 25 habeen badan ku weytay xanuunkaad u timid muxuu ahaa halkan macaan buu ahaa macaankiina kolkii hore ladnaa ma dareemay intaad joogtad ladnaan dareemay mar hore aad hore u timi intaan joogay baan ladnaan dareemay 10kii hore yaa ku yiri halkan daway leedahay tiga ku sheegay Soomaalida oo dhamma yaa imika tiya waxaan ku sugannahay isla biyihii halkii hore naartu ka baxaysay waxoogaa dhaantaa laakiin way kulushahay dhinacan waxa jooga gabdho Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo adduunyada daafaheeda deegaanada Soomaalida oo dhan ka yimi idin tusi karno waaye wax weeyaan waxaan doonayaa inaan wax yar idin la wadaago biyahan siday u sii kala kululaanayaan mucjisooyinka Ilaahay biyahan way kululyiin laakiin waa kulaylan yar dhex joogi karo waxoogaa cagaha aad bay maaragtay ay ku dhibayaan haddaad saa u hayso kulaylku mar ka dambaysta si dareemaysaa laakiin haddaan sii durko on saa u sii durko kulaylku sii badanaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga garanaya meeshuu ka soo saaro halkani way ka kulushahay halkii hore aad bay u kulushahay haddaan sidaa u sii durkana way ka daran tahay hinda dhinaca joogta ka sheekee halkan jooga halkaas waa qabaarka halkaas ugu biyo bayla xoog bay u tahay halkan oo yar ladan toona dhex joogi karaya halkaasna way runtahay safiya tusmo oo qisadaani soo tabisay ayaa sidoo kale sheegtay in geyiga Soomaaliyeed halkan oo kale aysan jirin maadaama halkan biyaha mara ay dad badan u soo raadsadaan caafimaad sidoo kalena ay dugsadaan qaarkood waxa ay sheegtay in dadka ay ku karsadaan biyo sidoo kalena ay maalmo halkan sii joogi doonto safiya tusmo ayaa sheegtay in halkaasi ay ku aragtay mid ka mid ah dadka deegaanka kaasoo halkaasi caafimaad ahaan u soo aaday waxa uu sheegay in halkaasi uu ku sugnaa muddo 10 maalin ah sidoo kalena halkaasi uu ku helay caafimaad safiya tusmo ayaa sidoo kale sheegtay in halkaani caalamka dad fara badan oo cadaan iyo madow isugu jira ay ugu yimaadaan si ay halkaani caafimaad ahaan uga raadsadaan waxa ay sheegtay in 2 meel ay yihiin goobaha biyaha kulul ay ka socdaan sidoo kalena mucjisada la yaab kale lagu arkay